السلام عليكم ورحمة الله. دمان halkan waxaan ka salaamayaa shicibka Soomaaliyeed meel kasta kaga sugan yihiin dunida daafaheeda waxaan soo fariistay qoobtan barnaamij nuxurkiisa muqdadiisa daaran tahay lana magac baxay Soomaaliy hurdada ka kaca barnaamijka waxa idin soo jeedinayaa anigoo ah Muuse Maxamed Faarax Muuse Wariye dhageysigan daawaya walaalayaal miyaad lowdeen inay hooyaasheen inay diidi jireen xukunka shisheeye ee waddankeena hooyo loogu taliyo walaalayaal Soomaaliyeed miyaad lowdeen inaynu nahnay mid kula oo hooyo iyo aabo ina wada dhahay walaalayaal Soomaaliyeed miyaad lowdeen in barbaarteeni iyo wixii dalku lahaa lagu xasuuqayo waddankeena walaalayaal Soomaaliyeed miyaad lowdeen in aqoonyahankeeni iyo culimadeeni iyo odayaasheeni iyo madaxdeenu dalku lahaa lagu dabargoonay dadka gudihiisa walaalayaal Soomaaliyeed miyaad lowdeen 1977kii duulaankeenu ku qaadnay Itoobiya wixii ka dambeeyay in noo dhigay shax ah inaynu dawlad Soomaaliyeed dib aanay u daran dibna aanay u dharan inaga gudaheena ina loo kala qaybqaybiyo maamul goboleedyo kadibna qolaba laga sheegato dawlad gaar ah iyo calan gaar ah waa kuwii wax tabanayo maanay idinku filayn 27 sano aynu barwaaqada ku nooleeyeen dadka qaarna 27 sano ay ku noolaayeen murugo walbahaar iyo macluul qaajo iyo ubadkoodii la xasuuqo badna ay noqdaan agoomo badna ay noqdaan rajo badnaba ay maryaha dhigtaan oo ay maskaxda wax ka noqdaan Soomaaliya walaalayaal ma ogsoontihiin in cadawgeenu ahaa Itoobiya maantana inoo taliso maxay ku dhacday inay madaxdeenu ay sii maraan Itoobiya markay hawlo shaqo ugu ambaxaan waddanka dibadiisa lamarkaana ay yiraahdaan walaalaheena Itoobiya madaxdeenu warmiyaynu hoognay xilliga Itoobiya ay noqotay walaalaheen intaas waxaan ku joojinayaa barnaamijkayga ahaa Soomaaliya hurdada ka kaca